xaflad si heer sare loo soo agaasimay ayaa habeennimadii xalay ahayd ka qabsoontay hotel kulan ee magaalada Laascaanood. xafladan ayaa ahayd mid ay soo agaasimeen golaha hal-abuurka hablaha Sool. xafladan ayaa isugu jirtay dhiirigelin iyo qalinjebin, iyadoo lagu dhiirigelinayay Maryan Axmed Shire oo ah mulkiilaha xarunta Gaari Bilo Beauty Salon, iyadoo haweenka inta badan ka caawisa inay bartaan isqurxinta iyo sidoo kale cunto carfoon quruxna badan. golaha hal-abuurka gabdhaha Sool ayaa sanadkii 2 jeer dhiirigelin u sameeya gabadh kastoo la timaada hal-abuur. xafladan ayaa ahayd mid jawgeedu aad u degan yahay isla markaana haweenka gaar u ah. ugu horeyn waxaa xaflada furay gudoomiyaha golaha hal-abuurka Miski Cumar, iyadoo ka warbixisay golaha iyo sidoo kale una mahad celisay Maryan Axmed, kuna dhiirigelisay shaqada wacan ee hayso bulshada, iyadoo ay hadalada iska daba qaateen haweenweynihii ka soo qayb galay munaasabada iyo sidoo kale ardaydii qalin jebinaysay. Maria Performance iyo guud ahaanba marti sharafta oo aan magacyadeeda soo koobi karin, waxaan leeyahay Allah mahadlo macbuuda rasuulka mudan amaane, dhammaan marti sharafta joogta marwooyinka iyo dhalaanka maqaawirtiya haweenta intii magac liya haldoorka anoon midna reebahaynin asaan magaciisa sheegin maqaamkii hawlihiisa salaan magaclaan ku siiyay. waxaan halkan ka soo jeedinayaa xoogaa mana doonaya hadalka inaan sii badiyo, dhiirigelin yar oo aan ula jeedo walaashay Maryan Axmed Shire. waxaan leeyahay horta marka hore waan ku faraxsanahay in gabdho badan oo hal-abuur leh gobolka Sool ku soo kordhaan. ma aha Maryan oo kaliya laakiin gabdho kale oo badan baa midqa hadda way soo badanayaan gabdhihii reer Laaska. waan ku faraxsanahay horta run ahaantii inay gabdheenu hal-abuur doona hablaha baxaya iyo macalimadooda walaal Maryama runtii waxay soo kordhiyeen wax aad loogu baahnaa oo hablo inantu way u baahan tahay inay hesho aqoon ayadu isugu filaato, aqoon ayadu haday isqurxin lahayd iyo haday gurigeeda qurxisan lahaydba ay isugu baahan tahay ayadu inay isugu filaato waa loo baahan yahay. inantuna runtii quruxda waa wax alla ku abuuro, alla waa tuulaha oo man yunashaw في الحليات وهو في الخصام غير مبين. taasoo naga dhigtay gabdho isku filan xaq walba qurxinta ah. macaan waa mahadsantahay, abaalkaaga ma gudi karno. hadalka waan dheeraynay waqtiga kooban awgi waxaan jeclaysanay macalimadeena inaan guddoonsiino shahaado sharaf. abaalkay naga mudan tahay ma aha mid aan ku soo koobi karno shahaado sharaf. una mahad celiyay macalimadooda Maryan sida waxaan noo soo bartay makeup-ka, decoration-nada, sida loo qurxiyo ilaanka. waanu mandaqnaa Maryan Axmed Shire Darwiish. waad ku maadsantahay macalin mar labaad iyo mar saddexaad. ugu dambeyn waxaa xaflada soo afmeeray Maryan Axmed Shire oo ah qoftii dhiirigelinta loo sameeyay kana warbixisay Gaari Bilo Beauty Salon iyo sidoo kale xilligii ay furtay. golaha hal-abuurka hablaha Sool aad baan u salaamayaa. waxaan mahad celinayaa Ilaahay oo inagu kulmiyay makaankan caafimaadka qaba iyo inagoo caafimaad qabna, maskax caafimaad qabtana inaynu isula nimaadno isku wareysana alxamdulilaahi rabbil caalamiin. inta dabadeed waxaan mahad ballaaran u dirayaa walaalahay ay gudoomiyaha u tahay walaashay Miski Cabdixakiin, ururka hal-abuurka hablaha Sool aad baan u bogaadinayaa. barnaamijyo kuwan ka ballaaranna way qabteen, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. inta haddaan ka imaado kolley warbixinta layga sugayaa waxa weeye barnaamijkan caawa meesha lagu hayo iyo Gaari Bilo ama gabadh Bilo ayaan u bedelayo magacii hore waxaan uga guuray niman ba challenge igu noqday oo nimankii waxay ku leeyihiin walaal oo Gaari Bilo maxay tahay baalidii xagad ku ilowday. war gabdhaha Soomaaliyeed baaliba male baan ku yiri waa mid dantu ciisay. waxaan lahaa gabadh Soomaaliyeed baaliyi ma jirto mid ay dantu ciishay oo aad idinku kadeed badeen maahane. marka sidaas ayaan magacii uga wareegi rabaa oo insha Allah aan gabadh Bilo u bixiyay. marka insha Allah magac cusub baynu soo wada dhaweyn doonaa. gabadh Bilo haddaan faahfaahin idinka siiyo waxa la aasaasay sanadii tagtay 2018 bishii 11aad. iminka bishii 6aad ayaa u bilanayso 6 bilood ayay ku dhowdahay inta ay jirtay. hase ahaatee xaruntu markii hore waxay u shaqeyn jirtay sidii yacnihii inay ka shaqeyso qurxinta dumarka oo kale oo wax yacnihii arday ama wax producti kama soo bixi jirin. bishii u dambeysay ayaa ardaydani la qaatay oo koorsooyinka gaaban ayay qaateen oo ka faa'iideysteen. waxaan oran karnaa waa horumar ballaaran in intaas oo hablood oo caawid soo hor fadhida mid kasta ay ka qabeeshay isqurxinteeda
oo ay baratay make up nooc kasta uu yahay oo xaflad kasta ay tagayso ay inantii iyadu gacanteeda isku qurxinayso oo ku haqabeelayso halkii ay fail u gali lahayd ama ay tagi lahayd goobaha la isku qurxiyo oo xaalad caafimaad iyo xaalad waqtiba ay kaga lumi lahayd inay intaas hablood ay barteen oo ay gacantooda ku haqabeelayaan alxamdulillah wax ilaahay loogu mahadnaqo caqabadaha iga hor iimaanay waxay ahayd maadaama meeshaydu ay ku shaqayso aase koofeer ahaan ayna ku guda ballaaran tahay oo qurxintii hablaha la talintii hablaha yacni siday qurux caafimaad qabta ay u heli lahaayeen oo waxaynu ognahay inta badan hablaha Soomaaliyeed inay waqtigooda ku lumeen inay isqurxiyaan iyagoo aan ka fikirayn xaaladooda caafimaad marka inta badan waxaan kala talin jiray inay yacni ay helaan hablihii qurxin caafimaad qabto oo gabadhii inay qurux badnaatana safety-geedina ay saxdo ay gabadhii ahaato gabadh qurux badan oo caafimaad qabta taasi waxay ay tala bixinta aan siin jiray anigoo aan wax taladayda qarashin kaga bedelanaynin sidoo kalena aan u keeno productiyo anfacaya oo heerbala oo aan wax saameyn oo side effect ku keenayn sidoo kale inaan marin jiray make up-kii cilaansaarkii inta badan de waxyaabaha badan uu qabto yacni ay saaloonadu qabtaan marka inta badan caqabada igu soo noqonaysa waxay sideebad adigoo koofeer oo doonaya inaad intaas oo customer heshido wax ka marsada aad u bari kartaa dadkii yaa ka marsanaya hadii aad bartid dadkii adigi dadkii aad bartid oo ku dhiiri galis qof kasta inuu marsado adiga yaa ku noqonaya yacni dad wax ka marsado aad u shaqeynaysaa kadibna taa kolayba de weyn garan karnaa jawaabteeda oo baahida bulshadu ka badan inta aynu inagu qaban karno oo waxa laga yaabaa hadda hal habeen oo aroos marka uu jiro inta koofeer la saanad ku taala inay buuxsanto hablii albaabka laga xidho taasina waa caqabada jirta ayna kaga bixi karaan habluhu hadii ay bartaan oo inan kasta isku daydo inay barato ku gudoonsiyay shahaado sharaf Muuna Axmed Cabdi Muuna Maandeeq dalka TV Laascaanood